sidoo basheegay gudoomiye Jawaari in la dhowro midnimada baarlamaanka in la dhowro midnimada iyo qalbiga shacabka Soomaaliyeed ee aan matalno in muxuu ahay markii sidaan oo kale soo jeedin ay timaado sharciga dastuurka amniga sugo geeyay ciidamadaas kala bedelka lagu sameeyay yaan xumaan loo arkay sababtoo ah waxaan ognahay ciidamada jooga filla Hargeysa ama xafiisyada muxuu baarlamaanka jooga qaar baa 5 sano ee gudoomiye Jawaari oo gudoomiyaha ka ah joogay xafiiska waa xafiis muxuu ahay baarlamaanka Soomaaliyeed u furo mar haddii kala fikir dugnaansho ay timid waxaa hubaal leh asirigaasi kastoos meesha ku yimid 5 sano ee gudoomiye Jawaari oo gudoomiyaha ahaa joogay waxaa hubaal ah in muxuu ahay xoolaha ama arigaba ama looda meeshii ay deganeed ee ay muddo badan ku hoyatay ayay si ay ugu hiiliso ay ugu soo noqotaa hoyaadkeeda waxaa hubaal ah xildhibaanka mooshinka keenay inuu dhigsanayo xildhibaanada حسنين كان موشين كوضة يكن ديدا أنقل حسنين هدي لكن واحد يباطع أو كجبة ملا أنا يقول سدح مع الموت في لها الجيش مثل تا سببته أنا قلت إنه حال سبب هو ده إذا ما ذي نمحوها بدومي Jawaari أو كان صديق أيام ماشي جو وحاول أجيها أنا بقول عندي واحد لي يروح وير وحاول اللي يشرب دليل هذا من قليل سيد الله سيد ما أنت بالعادي حلبان كمية حلبانada ayaa fil Hargeysa tagay asaga oo fil Hargeysa joogo ayaa arkaysan kaamirayaasha waa ka wada fiirsanaysan video la duubay waa fiirsanaysan xildhibaan la leeyahay nooga baxay waa gurigii ummadda waa fil Hargeysa waa xaruntii lagu shaqeynay sharaf dilwa in la yiraahdo xildhibaan adiga kula mid ah xafiisyadayna nooga tag lahaansho waxa ka muuqata oo aan hore u sheegay baarlamaanka dhan iyo guriyihiisa iyo xaafadiisa oo dhan waxa weey baarlamaanka agabkiisa hantidiisa xafiisyadiisa iyo fikirkiisa in la lahaado oo noqdo baarlamaan ummadda Soomaaliyeed u shaqeynay waa arkayseen maanta video iyo laga duubay xildhibaanada muxuu ahay meesha ku shiray waad aragteen xildhibaan leeyahay naga bax oo garbaha la hayo oo la aflagaadeyna taas ayaa kamid ah in ciidamada la kala bedel you can believe nation sano ka shaqeynay ee gacanta la wax laga siinay ee gudoomiye Jawaari la jiray hadii maanta uu maqlo Daahir Jeeso ayaa muxuu ahay gudoomiyihii riday capability-geena heerka uu taagan yahay aad ogtihiin amniga xumaan taas uu ku sababa kala bedelida ciidanka la kala bedel runtii waa ku amaanayahay taliyaha booliiska garashadaas fiican intaas runtii ay dad badan garan kareen inuu gartay aad baan ugu mahadinayaa taliye Bashiir qodobka kale aan rabo inaan ka hadlo waxa weey gudoomiye Jawaari wuxuu u hoyday muxuu ahay wasaaradda gaashaandhigga sida la sheegay waxa aan leeyahay anigu waxa weey ama shirha uu qayb galaha soo hoydo ama ka soo hajooga meesha caawi waxa isku raacay waxa weey madaxweynihii ummadda madaxweyne baarlamaanka Soomaaliyeed waa kala fikir dugnaan kara laakiin ma burburaayo yaa lagu cabsiin baarlamaanka burburaayo iyo hay'ad ma baabaayso yaa lagu cabsiin waxaan doonaynaa in arrimaha baarlamaanka faraha laga baxo oo aan madaxda sare ayna soo faragelin mooshinka kalsooni buuxdaan ku qabnaa xildhibaanada keenay mooshinka inaan muxuu ahay aragtidayna inta kalena aan ku qancin doono saaxiibada markii aan doonno waa ku qancin doonaa
dastuuriyan iyo xeer hoosaadka anagoo waafajinayn. laakiin in la yidhaahdo sulax ha la galo, madaxweynihii ha laisku hoos tuuro, ra-iisul wasaaraha ha loo tago, muxuu ahay muxuu ahay dib isku soo muxuu ahay mooshinkaas wax u dhimaayo ha la sameeyo. arrintaas ma yeeli doono haddaan nahay xildhibaanada mooshinka keena. waxaan u keenay waxaa weeye waxaan ka aragnay danteenna, danta shacabkeenna, danta dalkeenna aan ka aragnay. marka aan jeclahay waxaa weeye in muxuu ahay arrimahaas iyadaa la dhowro. gudoomiye jawaari runtii waan ugu mahad celinayaa anigu muxuu ahay mowqifka uu qaatay oo ah in baarlamaanka la burburin si dastuuri iyo xeer hoosaadka waafaqsan uu kala baxo. waan ku raacsanahay taas, horeyaan ugu iri taas, horeyaan idaacadaha ugu sheegay in baarlamaanka soomaaliyeed aanan wax looga dhimin. waxa keliya ahay muhiima waxaa weeye in la ilaaliyo jiritaanka dowladnimada, waayo shacabkeena ayaan matalnaa annaga. runtii muhiim weyn ayay noo tahay in muxuu ahay madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaarahaba inaynan arrintaas soo faragelin. wax muhiim oo weyn ayay noo tahay. waxaa waaye mar haddii aan keennay xildhibaanada 107 xildhibaan ayaan ku geynay mooshinkeeda. mar haddii mooshinka aan geyni waxaan aaminsanahay inaan difaacan karno. laakiin arrimaha la raadinayo geedlisiga soo gabanayo muxuu ahay laleeyahay sulaxa la raadiyo, arrintaas arrin aan ku qancayna ma aha. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba ayaga oo mahadsan inay arrintan baarlamaanka u dayayaan. baarlamaanka 100 khilaafaad oo tirka weyn baarlamaanadii aan kusoo jiray soo maray, waxaana ku xarlisanay runtii wax waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka waafaqsana aan muxuu ahay aan ku dhamaysan. mar walba cabsidaas ima hayso baarlamaanka soomaaliyeed garashadiisa inay kala jabaan wax ee ay xallin waayaan. waxaan ogsoonahay hay-adaheen dastuuriga kuwa bisaylka muxuu ahay aaminsan si loo xalliya markii ay timaada xaaladaha noocan oo kale ah inaan awood u leenahay. yaan laisku beer jilacsanin shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan mas-uuliyiintooda, yaanan laisku beer jilacsanin oo yaan laisku beer nugleysanin, oo yaan laisku dayin in baarlamaanka soomaaliyeed si aan sharciga waafaqsanayn in gudoomiye jawaari loogu korhayo. annaga haddaan nahay xildhibaanada keene kalsooni buuxdaan ku qabnaa, cod ku fil inaan u heli karno, in saaxiibadayna kalena aan ku qancin karno ayaan aaminsanahay. waxaa igu dambayntii aan rabaa in aan kusoo koobo hadalkayga gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee ahna gudoomiyihii ku-xigeenkii koowaad. mudan gudoomiye adoo mahadsan, maanta adigaa gudoomiyihii baarlamaanka muxuu ahay shacabka golaha shacabka soomaaliya adigaa maanta gudoomiyihii waa. waxa aan kaa codsanaynaa waxaa weeye noo hiili kuma li, hanaga hiilinin hana noo hiilinin si dastuurka waafaqsan sharciga dalka uu qabo. waxaan u malaynayaa baarlamaankii labaad ayaad gudoomiye ka tahay, 2 mar ayaad gudoomiye, hadda kuwa laba nin hadda maanta bisay la-aan ay haysan miyi. waxaan kaa codsanaynaa si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka inaad nagu hagtid muddada soo socoto oo dastuuriga ama xeer hoosaadkeena ku cadee 5 maalmood inaad haysan kartaa. walow hadda kala wareejinta muxuu ahaa aad ku wareegto xilka laga yaaba inay dib noo dhigto, haddana xataa haddii 5tii maalmood ay dibkaaga dhexayso waa inaadna soo wargelisaa ood update naga dhigtaa. muxuu ahay annaga oo danaynayna in waqtiga awoodda xeer hoosaadka uu kuu siiyey wax ka badan inaadna haysan karto. waxaan rabnaa baarlamaanka soomaaliyeed meel kastoo joogaan, shacabka soomaaliyeed waxay naga sugayeen shaqo. waxaan ka codsanaynaa dhammaan xildhibaanada soomaaliyeed si aan uusa qancino waxa aan soo jeedinin aan idinku qancino. ninkii nagala mid oo hore u soo jeediyo oo mooshinkan ku jiro oo banaanka jiray iyo ninkii aan ku jirinba si aan uusa qancino 275 kursi banaan ma ogey inta kale inay soo wada xaadiraan. waayo waad ogtihiin culayska uu leeyahay muxuu ahay fadhiga baarlamaanka markii heeraha noocan oo kale la marayo. waxaa mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celinayaa bahda saxaafadda oo mar walba muxuu ahay si waafaqsan sharciga
muxuu ahay iyo dastuurka iyo muxuu ahay danaha shacabka soomaaliyeed ay ku jirto si ay warka u gaarsiiyaan oo ay aad u gaarsiisiin ummadda soomaaliyeedna aad ugu deeqsiisiin waa idinka mahad celinaya ilaa iyo hadda saxaafadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ama t v ha noqdo ama raadiyo ha noqde kama aan maqlin wax oo muxuu ahay wax u dhimaayo habsamo socodka baarlamaanka iyo howlaha muxuu ahay ee kusoo cusboonahay sidaas iyo si lamid ah ayaan haddana idinka rajaynayaa inaad hawshiina u qabsatiin waxaa weeye inaad run sheegtiin shacabka soomaaliyeed si ay uga haqabeelaan war hufan oo muxuu ahay nadiif ah oo muxuu ahay ay ku jirto danta iyo danta dalka iyo dadka ay ku jirto si aad ogashiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinka mahad celinayaa guddoomiyaha baarlamaanka ee cusub ee hadda xilka la wareegay sida kumeel gaarka xilka usii wadaayana waan u mahad celinayaa guddoomiye waxaan kaa codsanaynaa inaad si dhaba ula wareegtid hay-adda iyo hogaaminta baarlamaanka soomaaliyeed baarlamaanka soomaliya wuxuu leeyahay shaqaalo rayada wuxuu leeyahay muxuu ahay arkiviya wuxuu leeyahay muxuu ahay howlwadeeno hufan oo aan ku kalsoonaan karno intaasba haddii aad kaashato waxaan aaminsanahay inaad si jirto oo dhaba aad ugu soo bixi doonto oo aadna u hagi doonto waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaanada ka noqday mooshinka la sheegaya miya aad ka wadaa maxay ku saabsan tahay xukuumadda ra-iisul wasaare kheyr ku eedeynaya in warqada khilaafka halka ka bilowdo ka hadlaya maya khilaafka horta wax walba in laga run sheegaa fiican saaxiibyaalow waxaan idiin sheegayaa octobera la bilaabay mooshinka jawaari waad ogtihiin saxaafiyiinaad tihiin warka waad heli ogtihiin octobera la bilaabay baarlamaanka fadhigiisa yaanu soo galay waa la xiray wax mudnaanta koowaad aan siinay waxay ahayd kabanigii waxa iyo nooga xigay wuxuu ahay mooshinka howl kale oo aan galna ma lehan reediyaan u ahan diyaaraan u ahan waa diyaar garayna intii fasax lagu jiriyaan diyaar garaynay oo aan ka shirayn oo aan shirarka qabsanayn ka horaan ka qabsanayn intii kal fadhigii labaad uu noo socday marka waxaas wax sal iyo baarlama le aniga cabsiyaan qabaa ama ay xukuumadda idinsoo fargelisaa oo jawaari ay idinku korahayaan cabsi ahaan qaba asagana inuu yidhaahdo muxuu ahay ra-isul wasaarihi uu ku eedeeyo waxa aan jirin sharci maaha dabcan isdifaaciddaa meesha ka gashay xildhibaan waxaan weydiinayaa magacii waa cabdiqaadir jiijile xildhibaan muuday oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ah oo goobjoog u ah markii mooshinkii laga waday jawaari la laalay markii dambena shir jira ay u qabtay midaas oo ma caddayn si ay faragelin jirto maya hadda waa kuu sheegay waxaan ku yidhi gudoomiye muuday lama wareegin awoodda marka ayada mana hadlin oo muuday oo hadlaayo lama soo saarin ne qof i tusi kara muuday oo hadlaayo meesha wuu fadhiyey waa loogu yeeray sikadiisa ha loogu yeeray shiraa imaanaysa ha la yiri laakiin waxaa hubaalan muuday waxaa loo gudbiyey 107 warqadood warqad hal ah ayaa loo gudbiyey marna ma dhihi karo mooshinkaas ima soo gaarin marka hadda dad soo tashtay ay u dhaxda ka gala wuuna ka aamusay runta waa ku ammaanayahay inuu ka aamuso waayo guddi joogto ah asaga un baa wici kara guddi joogto ah hala wacday dadka xildhibaanadii waa iska jiifteen habeenkii maalintii waxay kusoo baraarugeen iyadoo guddiga joogtada la wacaayo tax messagekii waxaa la isticmaalay oo baarlamaanka waxaasoo dhan waxa aan xal ahayn oo muxuu ahay soomaalida waxay dhihi jirta lax gowracangeeda ka muwaafaqan iyo qof daad qaada xumbu cusub waxyaabaha noocaas oo maamahda ay u eg tahay waxyaabaha la samaynayo oo la doonayo in loogu reason dayo ama sharciga lagu baal maro la doonayo ayay ka mid ahayd daahir amiin jeso maalin kadib markii baarlamaanka kalfadhigooda uu furmay waxaa yimaaday mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya dad badan waxa ay la qabaan aragti ah sida gudoomiye jawaari uu sheegay in mooshinka uu la xiriiro ansixintii heshiiska dibooda dalka looga mamnuucay marka mooshinkiina iyadoo laga mamnuucay dalka dibooda arrintaasi waxaa jirto xal magaalada xaggeeda db world ninka uu ololeynaya in dalka laga mamnuuco anigaas ahayd baarlamaankana waad imaanayseen waadna joogtay waxaa 6 bilood ka horaan waxaan keenay mooshin
oo DP World oo ay markaas cusbeen oo berbere iyo muxuu ahay boosaas iyo meelo kamid ah dalka laga sheegay sheegitaan bise markaasaan mooshin keenay cabdullaahi sheekh iyo aniga ay ahayd dadka abaabulay cabdullaahi sheekh ismaaciil oo baarlamaanka dadka uu daaweyna kamid ah maanta mooshinka meelas jawaari geey asaga maanta hala weydiyo inuu maanta yidhaahdo DP World igu haysta oo shacabka soomaaliyeed ku beer dilacsado maalintan mooshin geyn 3 beri kadib wuxuu u yeertay safiirkii wuxuu u yeertay oo imaaraad mooshinkaay meel la geeyey maanta hala sheego jawaar ha sheego DP World dadku u oleey asaga ruuxiisa intaan u tagnay aan ku qalqalinaan si aan mooshinkaayni ugu badbaadid geey aan dhahay marka runtii markii laga hadlaayo wuu siyaasadaynayaa guddoomiyaha muxuu ahay jawaari arrintan ha siyaasaday octobera lagaa keenay mooshinka waad ogeed kalfadhiga iyadoo mooshinka socda ayaa kalfadhiga ugu dhammaaday kii ugu hor waxa adiga nooga ka xanuun badnaay waxay ahayd DP World oo aan waddanka ka mudnoocno xildhibaanada 168 diiday dadka abaabulay oo hoosta ugu jiro oo kicinayaan kamid yahay shacabkana waa ogyihiin xaata 100 maraan ka hadlay idaacadahan ka hadlay sida maanta anigoo xildhibaan daahir jeesow asii weedayn kara muxuu ahaa DP World ayaa arrinteeda liigu haystaa sax ma aha taas waxay la mid tahay madaxweynaha iyo qayri iyo warqadiga qoraw muxuu ahaa diidan taasay la mid tahay mana diidana caawa cabsi waxaan qabaa in negotiation iyo wax odayaasha isku soo abaabulo oo xildhibaanada British waxay nagu soo jimaanaan oo adeeryaal waa la dahliira cabsidaasaan qabnaa mana yeelayno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana waa u sheegaynaa iyo isku hoos tuurin intuu asoo dhiiqadiisa qabo annaga oday waaye sharaf uu leeyahay qadarin buu leeyahay hadda ka hor hadal isu yiriyaan xasuusinaya mudane jawaari haddii mooshinka 92 iga keento maba joogay waa iscasilo uu yiri haddii geesiyaha iscasilo oo dalka iyo dadka u danayna anagoo adna xeeqini bariha yiraahdo guddoomiyaha dooran lahaydaan sheegtaa yiraahdo annagana aan balyeyn oo tinimadiisii muxuu ahay labadii baarlamaan isku soo hagay aan ugu hambalyeyn waa hadduu run sheegay 100 xildhibaanad ku yiri waa ilaa ay hadda dhagtaa u taagan 100kaas xildhibaan ilaa ay hadda dhagtaa u taagan waxay sugayeen jawaari xagees mari doonaan adeerow nin oday ahaa tahay nin soomaaliyeed tahay nin aan qiimo iyo qadarin u haynaa tahay waxaad yeelaysaa xilka guddoomiyenimada nooga deg xildhibaanaan wadanahay xildhibaanimada kaamisaaro hoyna annaga inaad xildhibaan noqoto oo weliba awow lagu yiraahdaa ayaad awoodaa inaad guddoomiye noo noqotid ma awoodid waa aniga waa waxay iga soo go'ay waay taas oo aan ogahay ugu dambeyn marka waxaa jirto xilli marka shirkida uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka uu ku sheegay in duulaan ay kusoo qaaday xukuumadda baarlamaanka shirar siyaasadeed oo ka dhan ah mooshinka jawaariga waxaa ka dhex muuqanaya wasiiro xildhibaano xukuumadda ka tirsan idinku marka sidee inaad shacabka ugu iftiiminaysaa in xukuumadda ay banaanka ka tahay mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada wasiirada 175 ay kamid yihiin ma aha maalintii shalay markii DP World la ceerinay ayagoo wasiiraha ay gacanta taageen saxaafadda goobjoogaya maanta mooshin ma ka qaybgeli karaan yaa yiri waa xildhibaannimada ma laga saaraa haddii wasiir noqdeen xaq bay u leeyihiin waxaa xasuusatiin haddii aad dalka joogteen markii xilka laga qaadayay muxuu ahay ra'iisul wasaarihii hore muxuu ahay cabdiweli sheekh wasiir goodax wasiirka arrimaha gudaha wasiirka ugu orod badan oo ridaaya una kamid ah oo mooshinka dhinaciisa ka wada yaa yiri xildhibaanka mooshin ma keeni karo xildhibaanku asagoo wasiire ayuu ra'iisul wasaarihiisa ridi karaa guddoomiyihiisa baarlamaanka uu ridi karaa meel ay xeer hoosaadku ugu qoran tahay ma laha arrimahaasna arrimaha marmarsiyada lagu raadinayo waayo la doonayo waddanka in kriisi siyaasadeed la geliyo laakiin dalkeena xildhibaanada maanta joogo waa xildhibaano 142 xildhibaanaha ka mid ah 3 baarlamaan ugu yaraan dadka soo maray ka mid ah 3 baarlamaan dad soo maray baarlamaankii sheekh shariif kii oo muxuu ahay sagaalaha xasan sheekh iyo kan qaara ka ah ilaa carta xildhibaanaha bisayl khilaafaadka noocaas ay ku fahmaan iyo qiildayashada noocaas ay ku fahmaan ay leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya fadlan guddoomiye jawaari
haddii dalka iyo dadka aada u danaynayso oo ay dhabkaa tahay oo oday soomaaliya ay tahay adoona aan qiil raadin adoonan burush xaarle aan dadka walaalo a marin adigoona aan muxuu ahay shacabka niyadiisa qalqal gelin waaga beri casilaadaada iska gudbi awow ahaw haddaad diidda soo maa baarlamaankaasaa inoo ballanay haddana si dastuurka waafaqsan iyo ceroodad ayaan kula baxayn waxaan kaloo la sheegaya waa huwaa